maanta munaasabadan hadafkeedu waxa weeye inaan maamusno oo u mahadcelinno oo soo dhaweyno ardaydii sanad waxbarasheedkii hore 2018-2019 kaalimaha u galay departmentiyadooda ama aqsaamta ay ka tirsan yihiin iyo sidoo kale ardadii ku guuleystay tartanka quraanka kariimka ee sanadkan jaamacaddu ay qabatay waxay ka kooban yihiin 17 arday 17ka arday 11 arday oo kamid ah waxay kaalimaha u galeen aqsaamtooda ama departmentiyada ay ka tirsan yihiin taasoo macnaheedu yahay qismi kasta ama department kasta hal arday ayaa kaalinta u galay tusaale ahaan accounting oo kale year 1 ilaa year 4 baa la tartansiiyey marka tartankaas wuxuu ahaa labada semester ee u dambeeyey bay ku tartameen marka labadaas semester markii la qiimeeyey waxaa runtii qismi kasta ama department ku soo baxay arday ayaa ku soo baxay ama ardayd ayaa ku soo baxday waxaa runtii xusud mudan arday badan inay ku jiraan oo sanadkan sanad ka horeeyay kaalimaha sidoo kale u galay oo mar labaad ku soo laabtay waxaan runtii xusayaa gabadha kaalinta koowaad gashay jaamacadda ugu sareysa ambiya warsamo cilmi oo runtii yani waxaad ka fahmi kartaan gabadha dadaalkeeda sanadkii hore waxay ahayd ardaydii ugu mataqaana hooseysay ama 11 arday ee kaalimaha galay yani waxay kaga jirtaa rankiga meesha ugu hooseysay kaga jirta sanadkan ayada ugu sareysa marka yani graafka ay soo kacday halkaas laga dareemi karaa inay markii hore ay u hooseysay haddana qofka ugu sareeya ay noqotay marka runtii dadaal bay muujisay sidoo kale ardada kalena way dadaaleen ayaguna kaalimo fiican bay galeen marka hambaliyaan leeyahay mar labaad oo hambaliyeenaya waalidkii runtii ka soo shaqeeyay oo waqtiga mataqaana juhdi iyo dadaal ku bixiyay baa mataqaana ammaan iska leh oo runtii u baahan in loo mahad celiyo iyo sidoo kale macallimiintii iyo maamulkii iyo guud ahaan jaamacadda oo dowrka waxa muhiimka ku lahayd anoo ku hadlaya afkayga iyo afka ururka waxaan u mahad celinayaa dhammaan ardaydii kaalmaha ka gashay daraasaadkii iyo ardayda quraanka ku tartantay iyaguna hormuudka u ahay kaalinta koowaad galay waxaan leeyahay la kala dheeray orodse ma aha waan idin hambaliyeynaynaa waana idin ducaynaynaa waana idin bogaadinaynaa waxaan idin leeyahay annagaa hormuud noo tihiin jaamacadda hormuud u tihiin dadka iyo dalka hormuud u tihiin ku dayasho iyo qadarin iyo ixtiraam iyo waxa mudan tihiin hoggaan sida la sheegay ardayda ka midka markii horena kaalinta ugu hooseysa ka soo gashay maantana alxamdulillah kaalinta ugu sareysa ka gashay waxaan rajaynaynaa kaalimihii haddaad kuwa ugu sarreeya ka gaadhay meelo kale oo badan oo iyaguna inaad sidaa ugu sarreysa la rabaana way jiraan baan leenahay iskuna day kaalintaas kaalin waa la soo gaari karaa laakiin waxaa muhiim inaad ixtifaad ku samayso odan hoos uga dhicin qofku inuu duruustiisa mudaakareeyo inuu maadooyinka u qaadanayo la socdo inuu adawaadkeedii iyo ku dadaalo juhdigeedii iyo tartiibkeedii mar walba uu leeyahay taa intaasaan ka odhan lahaa tan qur-aankana waa taan horu sheegnay oo dee cid ilaahay sharfiyey ayaa qur-aan xafida waxaan leenahay allah idinku karaameeyo qur-aanka hala sii ilaaliyo jaamacadda mumayazaadkeeday ka mid tahay in la karaameeyo qofka qur-aanka xaafidka ah ee ku guulaysta ee inta halkaa uu iska soo sharaxo oo imtixaanka galo barnaamijkan ah in ardada maxaan ku raadayto loo hambaleeyo lana dhiirigeliyo oo ardadii kaalmaha gashay laga sooco ardadii kaleete waxay ka mid tahay mabaadi'da jaamacadda ama dhaqanka ka jira jaamacadda oo ah in qofka wixii uu qabtay hadday wanaagsanaayeen lagu abaalmariyo oo dadka kale lagaga sooco si uu maxaan ku rahdaa u sii wado dadka kaleetana ay ugu daydaan oo ardada isugu daydaan oo waxaa laga yaabaa arday ku jiray sanadka hore inaysan sanadka ku jirin waxaa laga yaabaa kuwo cusub oon sanadka hore joogin hadda inay joogaan macnaheedu waa maxay waa dhaqanka jaamacadda in mataqaanaa la hormariyo in maxaan ku rahdaa tartan furan oo mataqaanaa xalaal ah oo aan maxaan ku rahdaa aysan ku jirin wax la yiraahdo aysan ku jirin waan tartamaynaa oo col baan nahay aysan ku jirin qof walba iyo mataqaanaa wixii uu markaas oo maxaan ku rahdaa sameeyo lagu abaalmariyo inaad fikirta gaarto ama buurta dhakadeeda gaarto guul baa u naqaanaa qofka guul baa la yidhahdaa inaad guulaysatay inaad joogtay meeshaasna oon lagaa qaadin
waxaa loo yaqaanaa hormuud baa loo yaqaanaa ama inaad horseed ahaad martaa inaad joogtid ta kale waxay tahay halabuurko inaad shaqooyinka la qabto si kale u qabatid halabuurka saas weeye macnaha wixii la qaban jiro dadku qaban jireen qaab kale inaad u qabatid marka intaaba in jaamacad laga helo weeye waa in ardadaas laga helo mataqaanaa guulaysta oo guusha nagu badato waa inaad ku sii adkaystaan meeshaas oo meesha laga soo tuurin dad badan baa soo fuulaya marka waa la isriixayaa gudahana waa laga tartamaya sida kuliyadaha la sheegayo ardada hadda waa la kala sheegtay marka meesha inaad sii joogtaan oo nambarkiina aad adkaysataanna ayadana mid kale weeye insha allah halabuur baan ka iska imaan doonaa mar inaad haddaad guulaysateen oo meeshii joogtaan oo horseed noqoteen waxaa ku xigi doonta inaad markaasi aad wax cusub keentaan oo bulshada iyo nolosha wax cusub soo dartaan sababta aqoontu qofku inuu fakaro oo waxaa la qabanayo iyo mashaakisha jira iyo waxyaalo badan oo xal u baahan waddankan u baahan yahay in dib looga fakaro oo nolosheena runtii ku aadan waa wax muhiim weeye waxaan si kale ugu farxsanahay gabdhaha waxaa la yidhi gabadh baa kaalinta koowaad gashay waxaad ogtihiin tacliinta aynu wadno ee waddanka ka socota gabdhaha ugu horreeya mar walba gabdhaha ugu horreeya haddaad iskuullada tagto hooyaana daba taagana aabba ma daba taagna haddii kulan arday loo yeedho iskuulaadka dadka tagaa kulamada ayaa ka warhaye hooyooyinkaa imanaya aabba ma imanayo marka gabdhuhu mar walbana way ka horreeyaan sababtu maxay tahay wiilku albaabo badan baa u furan waa la sii daayaa waxaa la yidhahdaa yaa banooni soo ciyaar gabadhii culayska waxaa ku dhacaya reerkii hooyadii bay caawinaysaa reerkii mas-uul ka tahay dharkii bay dhaqaysaa cuntadii bay karinaysaa hooyadeed bay caawin gurigii bay mas-uul ka tahay wiilku meeluu mas-uul ka yahay ma jiro waa la sii daaya haddana banooni buu ciyaaraya haddana qofkii culayskaasi ku dhacaya baa ka ugalaya oo gabadha ahayd marka iyagana si gooniyaan insha allah ugu hambalyeynayna jazaakum allahu khayran waa haddana waad ogtihiin oo bulshada soomaaliyeed waxaa lafdhabar waa dhaqaalaha iyo kobcinta dadka iyo dumarka dibadda markii la tagayna gabdhihun baa lacag soo xawilayo wiilkii wuxuu noqday waxaa leeyahay drop out buu noqday duurkuu galay marka gabdhaha jazaakum allahu khayran dhinac walba haddana waxaa la leeyahay xuquuqdoodii baa loo diidan yahay soo maha marka dhinac kala fiiriyo soo idaacadda markaad dhegeyso waxaa leeyahay koontadii gabdhaha maqan subax walbaad maqlaysa maalin walba ya qoontada gabdhuhu miduu ilaahay siiyey soo maha miduu ilaahay siiyey ninka u diidanaya saa gardaraya laakiin gabdhaha in lagu mashquuliyo siyaasad iyaduna ujeedooyin kala dad lebaa wata barnaamijkaas oo waxaa la rabaa in guriga laga saaro oo guriga la dumiyo muslimiintu guryaha ay ka dhaqan yihiin guriga haddii la kala dirana dee waa khalaas weeye